Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Somali News. Warka naga soo gaaray caasimadda Beirut ee waddanka Lebanon ayaa waxay sheegayaan murugo, musiibo iyo dhacdooyin naxdin leh. Markii hore qaraxyo yaryar oo kala duwan ayaa laga maqlay caasimadda Beirut ee dalka Lebanon. Kadib hal mar waxaa dhacay waxaan ilaa hadda la aqoonsan karin waxa ay yihiin. Adduunka oo dhan ayaa yaaban oo ka naxsan waxa ka dhacay Beirut. Qofkii muuqaalkan duubay meeshu waxa uu jiray 10 kiiloomitir. Xaalad laga ilmeeyo, xaalad aad u daran, musiibo ayay bartanka kaga jiraan shacabka reer Beirut ee dalka Lebanon. Dad badan ayaa durbaba la sheegay inay geeriyoodeen, laakiin cid ogaan karta ma laha waqtigan. Waayo waa 2 saac oo habeenimo. Gurmad aan kala joogsi lahayn ayaa socdo. Dad badan ayaa la weysan yahay. Qoysas badan ayaa gabigoodba fare lagu hayn. Beirut way ilmeynaysaa. Walina lama oga sida ay wax u dhaceen. Dekedda magaalada oo dhan ayaa dhulka gashay. Hoteelo ku dhawaa meeshu gabigood burburtay. Xaafadihii waxa ay noqdeen meel uur ku taalo ah. Fadlan aynu u duceyno walaalaha muslimiinta ee Beirut oo musiibo weyn ay wajahday. Wararka hoose ayaa waxay sheegayaan in gantaal lagu dhuftay. Hase yeeshee gantaalkaas ayaa noociisa ilaa hadda aan la aqoonsan. Hase yeeshee wararka soo bixi doono iyo saacadaha u dambeeya ayaa waxa ay soo baxayaan sida ay wax u dhaceen iyo weliba cidda soo tuurtay gantaalka. Dhammaan baabi'iyay inta badan dekeddii iyo weliba meelihii ku hareereysnaa ee dalka Lebanon.